Soomaaliya guud ahaan inta badan kama shaqeeyaan warshado ama xarumo soo saara badeecadaha iyo walxaal looga baahan yahay in lagu isticmaalo gudaha dalka Soomaaliya. Farsamada gacanta ama xirfadaha kala duwan waa kuwa ay bulsho ku horumarto kagana maaranto inay meel kale looga soo waarido waxyaabaha ay u baahdaan. iyadoo ay yartahay wax soo saarka gudaha dalka Soomaaliya ayaa haddana waxa jira dad muddo dheer ka soo shaqeynaya farsamada gacanta iyagoo soo saara waxyaabo badan oo ay isticmaalaan dadka ku nool magaalooyinka iyo dadka reer guuraaga ah ee gudaha dalka. waxaan sameynaa toorooyinka taasiska yaambooyinka sida iskarbeelooyinka oo biraha lagu jaro waxyaalo badan baan sameynaa. marka waxyaabahaas meeshan xagee loo lageeyaa ma baadiyaha iyo magaalada labadaba ma baadiyaha iyo magaalada lagu isticmaalaa indooyinka kuwa maqaaxidaha haween baa naga qaata kuwa reer guuraha naga qaata xagga sida iskarbeelaha geerishada oo haween oo ganjeelooyinka lagu sameeyaa naga qaata. kana muxuu yahay ka kuujooyin way xaawada lagu jiraa xaawada la'aantiis kan ma shaqeynayso ma jiri karo ma xaawada kuwii adag baan loo isticmaalaa inta kale faasiska oo xaawada loo isticmaalaa. tan waa soo gudintu dadkan aan tilmaamayo waxay si soo jireena ay uga soo shaqeynayeen arrimaha biraha iyagoo sameeya noocyo kala duwan oo loo adeeg arrimo kala gadisan oo aan la'aantood la isticmaali karin. ilaahay waa ku roon yahay farsamada kugu horeysa dubiyaasha inaad garaacdo baaha midiyaha yararka iyo madaxyaha iyo madaxmadilkii waxa inaad samaysido marka inta baratay kadib ayaa soofaha iyo wixii kulli markaas hagaajin kartaa. dabka balqaabka loo adeegsado dabka nooga hor dabka foorjadaas la shidaya biraha waa ku soo casaynayaan birtii oo casbaa la garaacaya marka birta waa jilcinaysaa birta. dadku waxyaabaha dibadda laga keenay iyo waxyaabaha gudaha lagu farsameeyo oo idinku hadda laftigiina waxa sameeyaan wax ku tayo leh keebay ma gadmaano si fiican mid iibsan way iibsanaa dad laga qaado soo iibsan waxaan sameeyno laakiin samayskooda dad badan oo waxaan sameeynaa iska yar shidna sida la wariyay qarniyadii hore ee Soomaalidu ay u badnayd baadiyaha dadka waxa lagu magac dhabi jiray ama magaca loo yaqaan lagu lari jiray magac kale oo tilmaamaya shaqada uu ka shaqeeyo sida ugaarsade badmaax tumaal iyo qaar kale. barnaamijkan kooban waxaanu kaga hadlaynaa dadka ka shaqeeya biraha oo sida magacooda shaqo ka muuqata lagu magacaabo tumaalo taasoo muujinaysa in magacan ay ku mutaysteen xirfadan ay ka shaqeystaan. jaahilnimadii hore ee dalkan ka jirtay ayaa sida la wada ogsoon yahay waxay sababtay in dadka halabuurka leh ee dalkan wax ku soo kordhiyay iska daa in la dhiirigeliye in lagu yeeso shaqo iyo farsamooyin ay soo kordhiyeen. dhibaato kasta oo soo martay dadkan wali waxay ka shaqeeyaan biraha iyagoo ka shaqeeya magaalo kasta oo ku taala gudaha dalka Soomaaliya. midalan kale oo kale waa burjike waxa lagu karsadaa cuntada waxa uu kamid yahay qalabka lagu farsameeyo gudaha Soomaaliya waxaana sameeya dad ka shaqeeya biraha kuwaas oo waxtar u leh gudaha dalka iyo magaalooyinka iyo baadiyahaba. cuntada ayaa lagu karsadaa waxyaabaha ay soo saaraan inkastoo guud ahaan ay faa'iido leeyihiin si weyn loo isticmaalo haddana waxa jira qaar dhibaato keeni kara. waxa ka yimaada qof mas'uul ah sax damiin la yimaado wiil dhalinyarada hadii noo yimaado damiin la waxba kama yimaano qof mas'uul ah مثلا reer baadiya oo howl dhaqataan oo kiibna qof dhalinyarada la balse waxba kama yimaano. intee saac ku jirtaa hawshan shaqada says hawsha waxa ku jirnaa waxaan ku jira horta aadan ahaan 20 sano garoobaan joogay oo ku sameynay biraha. Soomaaliya arrimaha uu dhaqaalaheedu ku tirsan yahay waxa kamid ah xoolaha nool kuwaas oo siyaabo kala duwan looga faa'iideysto. qalabka lagu farsameeyo gudaha dalkana arrimaha loo adeegsado waxa kamid ah gowricida xoolaha ku goynta geedaha lagu xareeyo ama lagu xanaaneeyo iyo waliba kuwa kale oo muhiim ah. baashana haystay bal soo qow maxay tahay waa faas soo gudaha waddanka ma lagu sameeyaa aad qoladan farsamada tumaasha sameey aye waa ku talgal shaqadoodana waa geela loogu shaqeeyaa adu marka maxaa ka shaqeysaa hilbaha geelo geela ka shaqeysaa aad geela madax kala magaalada qaar waan qala qaarna waa shaqaale kala jiro. marka intee saan ka shaqeynaysaa hawsha hilib geela qalitaanka
koronto duwe aano 42 sano 42 sano qalabka isticmaalaysay ee uu ka mid yahay faaskani ma gudaha waddanka lagu sameeyay aad 40 sano 2 sano ka hor baa la sameeyay farsamo yaqaan baa jiray oo kuwan laakiin kuwan laftigoodu waa shaqeeyaan hawsha ay qabtaan boqolkiiba dadaal weyn ay muujiyaan maadaama ay naftooda baadaa wali hawshaas ay ku dhex jiraan maanta waxa lagu haysto ayagu waa ciidamadaas ayaga laga helay ma garatay waa tahay daawadayaal halkan aan ku jirno waa suuqa lagu farsameeyo biraha kala duwan dad ka shaqeeya farsamada gacantu waa dad waddanka wax badan ku soo kordhiyay isla markaasna ka shaqeeya guud ahaanba magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliya biraha ay soo saaraanna waa kuwo in loo isticmaalo magaalooyinka iyo waliba baadiyahaba dadkani ma helaan taageero dhanka dawladda iyo waliba haday noqon lahayd dhanka hay'ado oo ay jiraan inay ku magacaaban yihiin dhanka farsamada gacanta qofka taageera ama sanadna maalgeliya dan helna horumar waa ka gaari lahayn oo hadeer ka hor waxaan sameeyay burjikooyin tashiil baa laga dalbaday oo qadaraaska anaa qaatay oo waa soo sameeyay tababarkii ku guuleysanay markii dibna anaa dib u sameeyay oo magaalada loo qaybiyay waxaa kaloo xusid mudan dadka marka laga tago in midba uu midka kale ka dhaxlay ama uu ka arkay uma baran si toos ah arrimahan ay ka shaqeynayaan waxaan ku tilmaami karnaa waa shaqo hidaraaca inkastoo ay jiraan dad aysan waalidkood ka soo shaqayn jirin balse uu waqtigu baray may hadee qof isku xoolay waddanka koonfur deganaan buu ahaa xoolihii iyo waxaan naga baabayaan haddana waddankan soo qaxnay lacagta aad ka heshid maalintii intee dhata lacagtaan ku helaaday iska marba si way magtahay suuqan mar 200 Soomaaliyeed mar 300 Soomaaliyeed mar 400 Soomaaliyeed marba si way laakiin xaafadaada iyo warkaadi bataa Soomaaliya lacagta ka hesha ha shalilaha waa tahay daawadayaal baasha halkaasaan waa bahasha dabka ee lagu kiciyo saasa leeyahay dabku markaa wuxuu samaynayaa inuu kaco waxayna samaysaa biraha ayaa la geliyaa oo ay jilcisaa marka waa bahal ay aad uga sameeyeen yihiin dad ka shaqeeya farsamada gacanta ee ka shaqeeya guud ahaanba magaalooyinka dalka Soomaaliya waa u jeedaan baasha xoog loo wadaya waxa qaab garaam bay u samaysan tahay ama ilchukaanta gawaarida shaki kuma jiro dadkan oo xitaa meelaha ay ka shaqeeyaan ay tahay meelo cidhiidhiya in haddii aqoon iyo taageero dhaqaalaba lagu biirin lahaa ama la bari lahaa inay dalka ku soo kordhin lahaayeen waxyaabo badan dalkana u leh faa'iidooyin